Mid ka mid ah qabiilada degan dalka Uganda ayaa leh dhaqan u gaar ah oo xagga guurka ah. Gabadha la guursanayo habaryarteed ayaa la seexanaysa ninka ka hor intaanu gabadha la aqalgelin. Dhaqankan waxaa lagu sheegay inuu yahay in ay habaryartu soo tijaabanayso ninka in uu yahay ninka bixi kara gogosha iyo in kale. Dhaqankan ayaa waxaa iska leh qabiilka loo yaqaano Bayankole, kaas oo ka mid ah qabiilada ku dhaqan waddanka Uganda. Waa dhaqan ka mid ah kuwa naadirka ah ee ka jira qaaradda Afrika, gaar ahaan dalka Uganda. Inkastoo dhaqankan la sheegayo in caada ahaan qabiilada kale ee dalka Uganda aanay ogoleyn, haddana qabiilkan ayaa kumanaan sano kusoo dhaqmayay. Marka gabadha iyo wiilku dhammaystaan hawshooda shukaansiga ah ee isbalansiga iyo guurka iyo doonista, ayaa ka hor inta aanu dhicin guurkooda waxaa la sheegayaa in habaryarta gabadha la dhalatay hooyadeed ay la seexanayso wiilka, taas oo lagu sheegay in ujeedadeedu tahay in la soo tijaabiyo raganimada ninka iyo in uu ka bixi karo oo uu qancin karo gabadha. Taas oo lagu sheegay in jawaabta ay bixiso habaryarta ku xiran tahay in uu guurkaas dhaco iyo in uu fashilmo. Rag badan ayaa caqabad kala kulma arrinkan. Habaryaraha qaarkood ayaa la sheegay in iyaga oo diidan guurkaas in uu horey u socdo ay ka been sheegaan waxtarka ninka gabadhaas guursan lahaa. Waxaana caada dhaqameedkan uu muddo ka jira qabiilkan Bayankole la yiraahdo ee ku nool gudaha dalka Uganda dhexdiisa.